maalin dhaweyd waxaan arkayay nin la yidhaahdo daa'uud xanfar. daa'uud xanfar waa nin meelaha ka heeseysa warniyo bal hadalkayga ha la gaadhsiiyo. daa'uud xanfaro waxaa ku leeyahay ceelka hargeysa dhaqa waxa ka ah in martida la dhowro. reer puntland baan ahay, waxaan ahay reer ssc khaatumo. waa kafta reer magaal jeebadda aada ugu riday reer somalilan. hase anigu ku leeyahay shimbir duulimaad badan marbay libaax labadiisa daan dalabti dhacda. marka hore hambalyo dhammaan wasiirada lasoo doortay, hambalyaan leh. waxaase anugu halkan leeyahay maanta waan rabaa bal inaan qodobkayga halkan ku caddeeyo sidii gabadh oday malcuune dhaloo laga mildhaamayo oo wiil meel dheer ka ilaaqan jiray gabadh malcuuna u diray oo maqoodiinka u saartay oo farax makaankeeda galay madaxwareerayso madoobaadayay maxay murugta laabtay. waryaadeen war waxaanu filaynay dee dowlad marka lasoo dhisayo dowlad cadaalad ka shaqaysaanu filaynay, laakiin dowladdii waxay dhex fadhiisatay cadaalad daro. halkaasaanu kala hadalnay, waanu ugu sheegnay, waxaanu nidhi wareeraha laga qaylinayo yuusuf shaacri ka qaylinayo oo abwaanka dhane reer somalilan, abwaanka ugu da-da yar waqtigan xaadirka inuu qaarkal kasi yar baa laga yaaba inay jiraan, laakiin da-da iminka dhaweyd ninka ugu da-yar buu ahaa sian anagu arkayay. war yuusuf shaacir baa hadle dadku ka hadlayaana dadka yibraha la yidhaahdo ama reer binu xaniifa. warbar wax kula tuntuuso oo wasiirka kula tuntuuso iyagaan filayay bal inuu waxu u faraqfiqa hadduu wax faraqfiqayo inuu reerkaa kula tuntuuso. waanu sida kaleanu ugu dhigno, waxaanu ku nidhi reerkii uu ka dhashay halyeegu weynaaye reer somalilan la oran jiray shuuriin. warbal reerkaa iyaga laftigoodu waxqabadkooda meel sare weeyaane bal iyaga laftigooda u dhiib. laakiin waxaa meesha ka soo baxday nin xildhibaan la yidhaahdo barkhad batuun beelooyinta madhibaan kasoo jeeda, reerkooduna inta badan afarta kore kasoo qayliyeen. hindisihii ay soo jeediyeen in uu meesha ka soo baxay ayaa meesha ka caddaatay. waxay yidhaahdeen barkhad ama waa inuu wasiir noqdaa ama waa inuu arrinta wasiirka lasoo dooranayo isagu soo doorta. isagoo nin madhibaano karu ayuu maanta soo doortay. haadaa huwa cadaaladii halkaasi ka bilaabmatay. madaxweynaha markaa la gaadhsiiyo. waxaase anugu leeyahay madaxweyne war hadda hadalkaa la gaadhsiiyo. hadday kaaga caddaatay beenta laguu sheegay inay run ku noqoto ma noqonayso. ragga ku yidhi annagaa ummadda u talina ee uu ka mid yahay xildhibaan barkhad batuun, suldaan daakir, suldaan nadiif seer jibriil iyo odayga baalasha qaata ee la yidhaha axmed iimaan warsane. adeer been bay kuu sheegeen, run baa kuu sheegayaa. raggaasi been bay kuugu warrameen. waraabo ma arag gudcaddaan arkay ayaa ummadda laga sheegi jiray. xukuumaddaada dhabbadii tii abad bila aadan soo marta tii ugu xumayd bay mari doontaa. dhabbadaad maanta qaadayna adducaa u madluub mustajiib. dadka masaakiinta ah ee xaqa u lahaa in kursiga lagula tuntuunsado ee dhaafisay ee annagii beel ahaan ku magacawnayn ama muuqashada kala ahayd somalilan. waa beesha reer sheekh muuse direed ee dhashii gobolka sanaag ee buuraha dheriye loogu magacdaray ee gobolka sanaag ku yaala. malaa madaxweyne malaa ma taqaanid buuraha dheriye la yidhaah war raggii loogu magacdaray waana. adeer haddii lagu sheego waa laysa sheelaa, haddii lagu sheelana waa laysa sheegaa. adeer ummadiina tan reer somalilan
gaar ahaanna beesha dhexe ama reer shaxsaaqana dhahday adeer burca hays barataan idin leeyahay maanta warkayga cadi waa kaa midkan saa idiin leeyana waxa weeye war adeerayaalow ummaddu hadalka isku afgarata xooluhuna urta maalin dhoweed waxaan arkayay nin la yidhaahdo daa'uud xanfar daa'uud xanfar waa nin meelaha ka heeseysa wardhigo bal hadalkayga ha la gaadhsiiyo daa'uud xanfaro waxaa ku leeyahay ceelka hargeysa dhaqa waxaa ka ah in martida la dhowro reer puntland baan ahay waxaan ahay reer s c khaatumo waa kafta reer magaal jeebadda aada ugu riday reer somalilan waxaase anigu ku leeyahay shimbir duulimaad badan marbay libaax labadiisa daan dalaq tidhaahda daawud xanfarow duqsigu caanuhu ku dabaal bartaa fuudkulna waa ku gubtaa adeer waxaad somalilan ka fashay ha la tegin puntland inkoo kaaga digaya hadal doqor ma garata ah ayaa halkaa nooga muuqda balse puntland ha la tegin haddaad la tagto adigoona waan ku dhashay oo reer puntland baan ahay ta kaa raacda hadal doqor ma garata ah dib baad uga qoomamaan doontaa waxaanse aada iyo aada kugu buurinaya oonu leeyahay waad ku mahadsan tahay walaalkayo mar haddaanad sida xildhibaanka barkhad batuun la yidhaahdo aanad nagula maraataysan gabooye wax la yidhahdo war gabooye isir maaha laakiin aada iyo aad baad ugu mahadsan tahay madhibaannimadaada saaad u muujisay si aad shaaca uga qaaday si aad madhibaannimadaada ugu kalsoon tahay si aad inaad nin reer puntland ugu kalsoon tahay si nin khaatumo iyo s c ah ugu kalsoon tahay aada iyo aad baad ugu mahadsan tahay laakiin waxaan leeyahay ninka barkhad batuun la yidhaaho waxa uu falay maad falin taasna aada iyo aad baad ugu mahadsan tahay waana kugu mahad celinayaa war markaa haliga gaadhsiiyo ninka heesaaga